السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. isku soo noqod wanaagsan waxaan ku jirnaa chapter 4 oo ahaa using the present progressive ama present continuous tense. Marka last time waxaan dhahay present progressive wuxuu la micno yahay adigoo dhahay present continuous. Progressive iyo continuous waa isku mid. So waxaan kasoo sheekeynay ama aan kasoo hadalnay ama aan soo baranay be verbki oo ing aan ku darnay oo the present progressive tense ka ahaa iyo kadib spelling of ing. Waxaan baraynaa haduu leeyahay the present progressive in form of negative qaabka aan u samayn lahayn anagoo adeegsanayna present progressive. So bismillah waan ku bilaabaynaa. Fadlan haddaad nagu cusubtahay subscribe saar intaan u gudgalin cashirka waa mahadsan tahay. Okay, negativeka waxaan garanaynaa in la adeegsado ereyga wuxuu caan ku yahay negativeka not ama no. So for example progressiveka waxaa lagu yaqaanaa inuu verbka ama main verbka uu qaato ing, negativekana not uu yahay. He is not studying, he is yawning. Ninkan wax ma akhrisanayo, wuu halaqyoonayaa. He is not studying, wax ma akhrisanayo, he is yawning. Yawning waxaa la yidhaha qofku inuu halaqyoodo ama hambalalyo. Okay, tusaale adiga iska soo qaad. Micnaha waa ina adeegsana am is a verb to be. I oo subjectiga I am not studying, I am yawning. Okay, so the present progressive-ka ama the present progressive negative-ka waxaa lagu yaqaanaa verb am marka subject lagu daro am is iyo are depending hadduu yahay plural iyo hadduu yahay singular. Subject anaka am is are am oo singular iyo kuwana plural is plural markii laga hormariya subject ayaa waxaan ku daraynaa not kadib verbkii waxaan ku daraynaa ing. That's how loo sameynayo. Example, I am not studying, I am yawning. Inta I haddaad ku darto I am not studying, I am yawning. Okay, Jada wa she is not running, she isn't running, she's walking. Is not, isn't dan waxaa loo soo gaabiyay is not. Waa is tan oo not tan lagu daray kadib apostrophe ligli la soo gaabiyay is intay noqotay. Waan soo baranay cashirka ayada ee contractionka. Okay, Scott and Katy aren't crying. Scott and Katy aren't crying. Scott iyo Katy waa laba canug wiil iyo gabar ma oynayaan. They are not crying. What are they doing? They are laughing. They are laughing. Let's practice. Take the word ride. Ride waa kaxayn, biskilid ha noqdo ama faras ha noqdo. You are riding a horse or a bike. David isn't walking. David ma socdo. Muxuu sameynayaa? He is riding. Kanaad soo qaadanaysaa. He is riding a bike. He is riding a bike. Okay, rest and work. Steve dash. He is dash. Steve is not resting. Steve isn't resting. Ma nasanayo. Laakiin muxuu sameynayaa? He is working. Waa uu shaqeynayaa. He is working. Taking or take a picture, eating. Miss Taylor isn't eating. She's taking a picture. Waa dhihi kartaa. Or Miss Taylor isn't taking a picture, she's eating. Mid ankas ku fudud. So hadda waxaan dhahaynaa Miss Taylor isn't taking a picture. She's not eating. Miss Taylor is taking a picture. She's not eating. Miss Taylor waxay qaadanaysaa sawiro wax ma cunayso. Okay, let's now go straight to the question. Marka negative-kan soo aragnay, statement-iga waa soo marnay. Negative-ka hadda question-ka qaabka loogu sameeyo progressive-kan fiirinaynaa. Is you Ying walking? So marka waxaan ku naqaanaa question-ka marka la sameynayo waxaan hore usoo baranay in verbka aan ka bilowno ama aan isticmaalno question word ama keyword saa u taqaanaan. Hadda verbkan ku bilaabaynaa is am iyo ayaan waxaan rabnaa inaan ka sameyno negative-ka. Okay, subject waa be, verb be plus the subject plus ing oo verbki main verbki lagu darayo. Either short answer or long answer ka soo baxayo. For example, be is and dhahay subjectiga you Ying magacaan soo qaat. Is Ahmed walking aan dhihi karaa. Is you Ying walking? Is Farah walking? Is Sarah walking? Is Khadija walking? Is Anab walking? Is Muna walking? Is Hussein walking? Is Qasim walking? And so forth and so on. So is verb kan qaadanaya be. Is you Ying walking? Yes, she is. Yes, she is. Or she's walking. Okay. Are they studying? Yes, they are. Or waa short answer laakiin
long answer maxay noqonaysaa they are studying way akhrisanayaan are they studying wax may akhrisanayaan yes they are ha waa ay akhrisanayaan they are studying wax bay akhrisanayaan then in form of keyword kaas verb q ahaa hadda question word ama keyword waxaa la yidhahaa wh waxay ka bilowda who whom how when where what why and all those where are they studying xagee bay ku akhrisanayaan in the classroom they are studying in the classroom so haddii lagu xagee bay ku akhrisanayaan fasalka waa dhigi kartaa ama waxaad dhigi kartaa waxay ku akhrisanayaan fasalka dhexdiisa okay what are they washing maxay dhaqayaan what are they washing the car baabuurka or they are washing the car waxa ay dhaqayaan ayaga waxay dhaqayaan baabuurka why are they washing the car baabuurka maxay u dhaqayaan why are they maxay u dhaqayaan baabuurka because it is dirty because sababta waa uu wasakhaysan yahay it is dirty they are washing the car because it is dirty waxay u dhaqayaan baabuurka sababtoo ah waa uu wasakhaysan yahay okay let's practice is uncle dash jawaabta lagu siiyay waxay tahay yes she is uncle is not working her uncle ma shaqaynayso so is uncle working on her car yes she is uncle is working on her car su-aasha waatan jawaabta waxaa lagu siiyay yes he is or James is feeding the bird so maxaan dhahaynaa is James feeding the birds yes James is feeding the birds or yes he is yes she is Inez is drinking coffee so su-aasha maxay noqonaysaa is Inez drinking coffee yes she is Inez is drinking coffee no it isn't it isn't raining so maxaan dhahaynaa is it raining no it isn't or it isn't raining or it is not raining next time cashirkeena dambe waxaan gelaynaa the simple present versus the present progressive waan isbarbar dhigaynaa comparison aan ku sameynaynaa as we contrast each and every marka waxaan rabnaa simple presentki inaan barbar dhigno present progressiveki aan ogaano farqiga u dhexeeyo similaritieskka iyo differenceka waxay iskaga mid yihiin iyo waxay ku kala bedelan yihiin fadlan hadaad nagu cusub tahay subscribe no sar si aan horumar ku sii gaarno annagana aan sii labalaabno cashirka dhiirigelin nagu noqoto siina gaarsiiya asxaabta ama walaalaha jecel barashada luqadda Englishka thank you so much assalamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu